بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوضيال إذن لهانتينا وحايدن لينا هاي كسو دوادا برامج قاوان وان وطلقلينا كفاقدو سياسة دالكا صوماليا إيو قابكا إيو سعوتو إيو شعبكا قابكا إيو أركان هدبا siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay noqotay dhari labada dhinac ka gubtay xaqiiqdii waxaad mudaaba siyaasiyiinta Soomaalida ay ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya haba ugu badnaadaan inay yihiin kuwo loo aqrinayo ama meersanayo cashiro ay dalal shisheeye ay wataan kuwaasi oo ay ka mid yihiin Imaaraadka, Itoobiya iyo waliba dalalka reer galbeedka qaarkood waxaad mudaaba in ay rabin horumarka dalka Soomaaliya inuu hor u sii dhaqaaqo وسببتا شيخ شريف عبد الرحمن عبد الشكور حسن على قيري iyo qaar kamida siyaasiyiinta reer Puntland iyo waliba kuwa kale oo ayaguna qarsoon oo iminka aan shaashada ka soo muuqanin shacabku ay inta badan ba ogsoon yihiin oo ayaguna markaasi doonaya in teendadii Soomaaliya loogu laabto ha ahaato dowladda federaalka Soomaaliya ay iminka jirto sida ay rabtaba ha u maamushay laakiin hanaanka doorasho qof iyo cod waa qasab in Soomaaliya ay hore ugu dhaqaaqdo sababtoo ah Puntland ayaa waxaad aragteen bilooyin ka hor ama sanooyin ka hor in ay doorasho qof iyo cod ah ay ka hirgeliyeen deegaanada maamulka Puntland sidoo kale Somaliland ayaa iyaduna qabsatay doorasho qof iyo cod ah oo in ka badan 30 sano ay markaas ku dhaqmayeen maxaa u diiday koonfurta Soomaaliya in looga dhaqmo nidaamkaasi oo kale waa maxay sababta siyaasiyiinta reer koonfur Soomaaliya aysan u ogoleyn in qof iyo cod doorasho loo sameeyo misleedahay siyaasiyiinta Cabdiraxmaan Cabshakuur Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Qeyre inay dhamaantoodba ay u qaadayaan ama ay u dab qaadayaan waa sababta markaasi Sheekh Shariif mar waliba oo ugu soo horjeedo dawlad kastoo timaada in ay markaasi doorasho qof iyo cod ay sameeyso haddaba dawladii la soo dhaafay dawladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ka ah xiligaas wuxuu Sheekh Shariif laf dhunkasho ku noqday asiga Xasan Sheekh iyo waliba Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo Xasan Cali Qeyre dhamaantoodba madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya xiligaasi maamulayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uusan sameyn karin doorasho qof iyo cod haddaba حسن ayaa haddana sidoo kale wuxuu isku dayay inuu doorasho qof iyo cod ah oo sameeyo waliba 2 sano kamid ah doorashadiisii oo 2 sano ee ugu horeysay muddo xileedkiisa ayuu bilaabay ololaha doorasho qof iyo cod balse Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo Xasan Cali Qeyre durbaba waxay bilaabeen in markaasi Xasan Sheekh uu doonayo doorasho qof iyo cod ay tahay barnaamij uu markaasi doonayo muddo kororsi haddaba ha ahaatee may aqbalaan oo ay markaasi ogolaadaan haddii ay daacad ka tahay madaxdii hore ee dalka soo martay in doorasho qof iyo cod la sameeyo waa la arki lahaa haddii Xasan uu doonayo doorasho qof iyo cod markuu qabsanayo inuu muddo kororsi rabo iyo in markaasi muddadii rasmiga ahayd ee 2 sano kaga harsanayd oo ku qaban karo gudaheeda laakiin maxaa sababay ayadoo 2 sano ay u dhiman tahay muddo xileedkiisa rasmiga in ay iska soo jaraan Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya inay yiraahdaan waa muddo kororsi dheeriya haddaba anigoona cidna duraynin ay siyaasiyiinta Soomaaliyana waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliya ay ogaadaan sababta ka dambaysa inay yiraahdaan waa muddo kororsi ama ay u diidan yihiin in doorasho qof iyo cod la sameeyo haddii la sameey lahaa ama ay dhacdo in la sameeyo xaaladda iminka lagu jiro waxay u daran tahay Xasan Sheekh Maxamuud sababtoo falal fara badan oo ay dadku qaarkood ee shacabku aysan cod ku sii kareynin ayaa jiro oo ay ka mid yihiin dhulka hantida maguurtada ee hantida dawladda Soomaaliya ay leedahay oo asigu markaasi gadanayo iminkan ay dadku ku eedeynayaan ma garan karno qaabka iyo nidaamka ay dawladdu iminkan u wajahayso gadashada hantida ama dhulka Soomaalida ay dawladda Soomaaliya ay leedahay sida dhulka markaasi dawladdu ay leedahay oo ay gadanayaan dawladda dhexe Soomaaliya qaabka ay u maareynayaan hantidaasi qaabka markaas u isticmaalayaan haddaba daawade
adigoona u arkaynin warbixintayda in cid gooni aanu ku durayo, waxaanu keliya ka hadlaynaa waxay tahay waa xaqiiqda ka taagan dalka Soomaaliya iyo wacyiga siyaasiyiinta Soomaaliya ay u wajahaan dowlad kastoo timaada. Balse haddii aan xaqiiqda ka hadalno, ma kula tahay haddii doorasho qof iyo cod ah uu Xasan qabto inuu asigu ku soo baxayo, ama ay Shariif dan u tahay, ama Cabdiraxmaan Cabshakuur, ama Farmaajo, ama dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliya siday u egi idil ahaantoodaba ay yihiin? Mase ma kula tahay in Soomaaliya xilligan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah? Fakirkaaga fadlan inoogu reeb qaybta commentiga ee hoose. Muhiim ayay inoo tahay, waxaanu balan inagu ah inaan halkan idinkaga soo gudbino barnaamijkeena xigo afkaartiina iyo weliba aayihiina qaabkaad uga hadli doontaan siyaasadda Soomaaliya iyo qaabkaad u aragtaanba. Aad baad ugu mahadsantihiin daawade. Haddii aad inala soo gaarteen dhammaadka barnaamijkeena, fadlan haddii uu muuqaalka ku qanciyey, follow inoo dheh. Haddii aadan follow inoo ahayn, siina share garay oo meel dheer gaarsiiyey muuqaalkeena. Like-ta iyo commentigana inoogu dadaal. Mahadsanidin. Waa saaxiibkiin Barrio oo idin leh tan iyo intaa dib ugu kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.